maayarka caasimada gobolka Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo barasaabka gobolka Gabiley mudane Mustafa Cabdi Ciise ayaa hadhima sharafeed u sameeyay waftigii ka socday dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa Somaliland isla markaana lagu casuumay aqalka martida magaalada Gabiley mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashay ayaa waxay yiraahdeen Gabiley runtii waxaynu nahay laba gobol oo gobol حل لو ذاك دولة إثيوبيا ورنتي علاقات دولة وحنو كفر حسنا إذا كم هاد علينا بقشة ذلك كنت معدن وحنو كم هاد علينا من الحوينة الصومال لأني حكومة ديس سدي شرفت يوم الجهل هاي وقت يوصل لوين رنتي كقبيلة يحان قيمة وينوقع ربي ناصمين صح إن أنو وفتي عدو هرسي صور دويسينا أنو حين reer Gabiley waa dadkii aad ugu farxay heshiiskii beergadoodirada ka dhacay markii arkeen qodobadii aad bay ugu farxeen sababta mar walba dadka gudba ee soo gudba waayaga mar walba dadkooda xagga joogaan ama meesha la soo dhaafay maanta Itoobiya laga galay sharciga oo wajaale taasi waxay keentay dadka reer aad u soo dhaweeyeen heshiiskaasi taas oo aad uga maqsuuday salaalkeygii wajigii lixda cisha Somaliland xaqiiqatan qolkiiba boqol waa mid dal guul ayuu soo dhamaaday taas oo aad u farxad gelisay annaga xukuumadda Somaliland waxaan aad haddana ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka Gabiley oo xaqiiqatan bilow ilaa dhamaad la garab taagnaa sayaan ugu mahadcelinayaa gudoomiye Sheene Mustafa iyo maayarkiisaba guddigiisaba sida fiican ugu soo dhaweysay sidoo kalena qaar ka mid ah fanaaniinta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Axmed Budul iyo Nuur Caraale ayaa iyaguna ka mahad celiyay soo dhaweyntan ay u sameeyeen maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley aad iyo aadna waa ugu faraxsanahay annagu haddii aanu nahay ready DSI-na kulay gobolka Gabiley iyo Somaliland guud ahaanba abaal gaar ah noo haynaa ismana iloobayno dadooda dhashay baan waxa muhiim ah wada dhalashada waa la ogyahay in la joogteeyo xiriirka iska warhaynta taasoo annaguna adkeynaa reer Somaliland guud ahaan waxaan ku boorinayaa إن اللي سدان أقول نبعضنا يقولون إنه نقول يمادان إذا كان هذه ياد بلد كمان أن الناس شرفت له قيمها له برسها قبل القبيلة يضمان بشدة في القبيلة أي نوصل وين قبل القبيلة هذه ياد بلد ستين نور على ما أنت عارف كيف تو قبل السودان كي قال أبان بفرح سنة هاي أنا بقول السودان مسؤولين إرتجاني يوفتي هذا فرق بدن وكانت نية هايتي أبان أحد وليد إسماعيل وفنانين بقى أبان بفرح سنة السودان وفتي له سودان قيمة تلاقي بكون صومالي صباح ذي فنك وما أنت قلت شو تشغل كل شارك عتيم دي دولة ديجان كصومالي دي توبيا وإنه آذو صاحبنا يدل شارعي معي والكور ما دي درين حاجة هذه أنتم بفرح سنة هاي مركزول ينور حالة ما هم مركز كوباد لو تشر أو هراء وان كلاني سكور بدنا وان كلاني فنانين نوابن ودنا هيبة صور كي قدر socdaalkani ay ku yimaadeen saraakiisha ka socota dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay wehelinayaan fanaaniinta ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ay Gabiley ku soo raacaan fanaaniinta dalka sidoo kalena maanta waxay ku guriye noqon doonaan gobolka Faafan oo kamid ah dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya caasimadiisa Jigjiga Mukhtaar Nuux Ibraahim on Cable TV gobolka Gabiley